waxay ahayd galab aan ilaa weynay wixii dhacay waxaan weynay aabayaal hooyooyin walaalo iyo saaxiibo nagu weynaa si la mid ah dalku wuxuu waayay muwaadiniin qiimo badan u lahaa oo qaarkood ka shaqeynayay horumarka dalkan samafalka iyo kuwa wax u baranayay wanaajinta mustaqbalka dalkooda waxay ahayd dhacdo iska badaa dadka Soomaaliyeed xitaa ka ilmeysiisay bini'aadamka ku nool dunida oo qaarkood noo soo gurumaday maalinta waxay ahayd mid gambalka u riday kumanaan qoys oo Soomaali ah waxayna dadka Soomaaliyeed u kala saartay aragtida qarsoon ee kooxaha argagaxa ku macaasha ee weli hortaagan deganaanshaha Soomaaliya waxay ahayd galab dadkoo dhan ay wada faraxsanaayeen qaarkood waxay rajeynayeen in ay la kulmaan ehladooda iyo caruurtooda kuwa kalena waxay rajeynayeen in waalidiintooda ay la kulmaan laakiin rajadaasi waxa soo afjaray qaraxii Soobe cidna ma maleysanaynin inay dhici doonto dhibaatadii ka dhacday isgoyska kiiloomitir 5 laakiin wax walba waxay ka qoranayeen xagga Alle musiibadii 14 Oktoobar sanadkii 2017 waxa uu bedelay fikirka muwaadiniin badan oo rumaysnaa in al-shabaab ay u dagaalamayaan in dalka ay ku xukumaan diinta Islaamka laakiin taasi waxa ay beeniyeen oo meesha ka baxday markii maanta aan waxba galabsan ay ku xasuuqeen maalin cad magaalada Muqdisho نم إسلام دم مسلم شجاي ما سلام وحيلاي نم إسلام نم شجاي ما سلام ومدة يلاي نوام بقول ستة بقول غفورة أبا بعدين لا شم بقول نم إسلام نم شجاي سبس يلا يهود ويا qof walba Soomaali ah markuu soo xasuusto maanta oo kale uu iska ilmeeyaa waayo dadkii halka ku dhamaaday waxay lahaayeen himlooyin gaar ah qaarkood waxbarashadii ayaa heer gabagaba u mariyay kuwa oo riyadoodu ahaa in wadanka ay wax u taraan kuwa kalena waxay tiigsanayeen horumar ku aadan balaarinta ganacsigooda intaa idil waxa soo gabagabeeyay xasuuqii 14 Oktoobar isgoyska Soobe markii la maqlay wixii dhacay waa la argagaxay cid kastoo ku hadasha afka Soomaaliya way ka xanuunsadeen wayna ka murugoodeen wixii ka dhacay halka qaarkood ayaa gurmad u sameeyay dadkii halka ku dhamaaday dhalinyaro badan oo qaarkood aan aad ugu dhiiranayn inay ka soo muuqdaan halkanka dalka loogu xoreynayo argagixisada ayuu weerarkii 14 Oktoobar ku dhiirigeliyay inaysan faraha ka laaban si dalkan ay ugu xoreyn lahaayeen xulafada al-Qaacida marka laga soo tago dhalinyaradii gurmadkii 14 Oktoobar ka qayb gashay haddana kuwa kale ayaa go'aansaday inaanu ku ekaan gurmadka oo kaliya balse ciidamada qalabka sida isbarbartaagaan waxayna markay dhameysteen tababarka ciidamadan waxa loogu magac tiray kuutada 14 Oktoobar oo ka mid noqotay ciidanka xoogga dalka waxay ugu kalifay inaan ku biiro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhacdadii xanuunka badneed ee aanan mar laba la hilmaami karin 14 Oktoobar ayaa waxa ay igu reebtay raad aad u xanuun badan kaasoo aanan jiirkayga ka go'aynin midaasoo aanan marnaba aanan hilmaami karin midaasoo igu reebtay filan waxaan ahaa jaamici shaqaysta noloshiisa maareeya waxaan ka doorbiday noloshii aan ku jiray inaan furinta imaado oo aan difaac galo kadib markii aan u adkeyso waay dhacdadii xanuunka badneed ee lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed ee maatada leh ee aan waxba galaysan ee qoys walba ee Soomaaliyeed saameysay kuutadan 14 Oktoobar waxay door firfircoon ku leeyihiin howlgallada ay ka sameeyaan gobolka Shabeellada Hoose oo ku sugan dagaalyahanada al-shabaab qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ku biiray ciidamadu waxay korun sheegeen hadafkoodii ahaa inay u bareeraan cadowga oo qaarkood naftoodii ku waayay kuwa kalena ku dhaawacmeen 2 sano kadib 14 Oktoobar waxay dad badan isweydiinayaan wixii dhacay oo u baahan in si dhab ah la isku dul taago
sidoo kale carruur badan ayaa isweydiinayso waxay galabsadeen waalidiintooda ay waayeen waa hubaal ma hilmaami doono ilaa efka aynu ku holeelno muwaadiniintii aan ku weynay 14 Oktoobar sanad kasta maantoo kale ayuu qaranka u aqoonsaday in si gaar ah loo soo xasuusto waxaana la sugayaa in mar kale loo baroortiiqo dadkii halkaa ku dhammaaday allow waddankeena inuu hagaajiyo waad ku mahadsan tahay daawashadaada la wadaag saaxiibadaada magaceyguna waa Cabdiraxmaan Cabdikariin Hello,